walaalaheen Soomaaliyeed wixii qurbaha jira wixii dalka joogo caawinaada u sameeyay ardayda iskuulka Al-Mustaqiim anigoo kamid ah macallimiinta iskuulka Mustaqiim waxaan idin sheegayaa marka koowaad alla ma hadda gaarto ilaa maxaa ahayto wax qabadka aad u sameyseen iskuulkan sida aad u dhantihiin walaalaheen qurba joogta ah maxaa iskuulka waxa dhigtaan arday Soomaaliyeed oo u badan agoon iyo dadka qaar oo aan agoonta waxba aan dhaamin oo iska tabar yar ilaa wadanka waxa ka jira shaqo la'aan iyo dhibaatooyin saas ajligeed agoonta ay fara badan tahay dadka danta yar lana ilmahoodana way dhigtaan waa dad ayagana tabartooda ay yar tahay tixgelinta ay sameeyeen oo ah in aad walaalihiin Soomaaliyeed wax u qabataan oo aad gacan qabataan waxbarashadooda saasartu waa ku mahadsantihiin ilaahay baa hore wuxuu yiri marka ay soo naxariistaan ayaan ana idin naxariisanayaa dadaalka aad bixisaan oo iskuulkaas aad gacanta ku qabateen wuxuu idin noqonayaa kaydkii aakhiro wuxuu idin galayaa buug aan marna iloobi doonin iyo akoon gooni ah oo akoomada ugu fiican akoonka Allah iskuulka markaan soo noqdo xagga waxbarashada anigu waxaan ahay macallimad iskuulka ka dhigto dugsiga sare ilaa dugsiga dhexe waxaan u dhigaa ardayda dugsiga sare foontuuga ah foonwanka sideedaadka toddobaadka lixaadka iyo shanaadka maamulaha iyo macallimiinta iskuulkaba waxay aad u weyn u dardargeliyeen aqoonta iyo akhlaaqda ay waxbarashada iskuulka dhinac walba markii loo fiiriyo xagga waxbarashada waxaa moodaa in ay heer walba ha joogaan ardaydu ay yihiin arday hore loo wado waqtiga saacada imaashaha waqtiga taabuurka waqtiga wacyigelinta xagga tartanka ardayda dhexdooda ah aad u weyn khayr Allah siiyo maamulka iyo macallimiinta intii awalan hawshan abaabushay iyo inta ku taageertay oo aan marka hore u soo qaaday magacooda waajibkaas oo ah waajib xag islaamiya iyo xag walaalnimo iyo Soomaalinimo oo nasaaran marka ardayda dadaalka ku bixiseen waa mid mirihiisa aad heli doontaan mid adduunyo iyo mid aakhiraba haddana waxa jirto in fasalada ardayda hadda waa waxbarashadooda way socotaa fasalana way haystaan laakiin way ka sii fiicnaan lahayd in ay helaan fasalo kale oo intaan ka badan maxaa yeelay maadaama san dugsiyeedka uu xirmaayo waxa imaan doono furitaanka sanadka dambeete waxaana laga yaabaa imaanaya arday cusub iyo kuwan oo leebarkooda ka sii gudbaan saas la ajigeed waxaan rajaynayaa in aad wax qaban kartaan aad si wax qadar dargelisaan annagana aan dadaalka bixinayo ardaydii aan ka dhignaa arday ka soo dhalaalay wixii loo xil saaray annagana aan noqono ayagana ay noqdaan kuwii waxa annaga u dadaalno oo u sheegno aan barnane ku dhaqmo oo naga qaato qalbigan alla u galiyo marka walaalihii maamulka iyo macallimiinta dhammaan bahdeenan kale asxaabta kale iskuulka wax qabadkiisa soo halgantay u diyaar garooday ayagana waxaan u rajaynayaa sidaa iyo si ka fiican السلام عليكم. Al-Mustaqiim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisii damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa